aad iyo aad baad u mahadsan tahay kudan muuse Somali Irish Media. runtii maanta jaraa'idka dalka ka soo baxa waxa uu qoray arrin aad iyo aad la yaab leh oo aad iyo aad looga naxo runtii marka ay noqoto dadka codsanaya dhalashada waddankan. jaraa'idka la yidhaahdo The Journal oo ka soo baxa dalkan Ireland maanta oo 17kii July ay tahay 2019 waxa uu qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay xukun aad looga naxo oo sheegaya in qofka la siinayo dhalashada aan la siinin sharci haddii uu hal maalina waddanka Ireland dibadda uga maqnaa sanadkii ugu dambeeyay. arrintaasi waxay runtii ku tilmaameen khabarada xagga sharcigu inay tahay xeer aad iyo aad u daran oo arxan daran oo runtii dadka alaamsa ala maxamedey sharciyada dhalashada la siinayo waddankan nibaad weyn ku ah. haddaba jaraa'idkaasi runtii wuxuu sheegay in maxkamadda sare ay xukuntay inaan qofna la siinin sharci dhalasho la siinin waddankan haddii uu dalka ka maqnaa muddadii 12kii bilood ugu dambeeyay hal maalin oo qura. xeerkaasi oo aan runtii alaamsa ala maxamed la filaynin ayaa waxaa gacanta laga geliyay wasiirka cadaaladda ee dalkan Mr Justice Max Barrett, kaasoo saameyn ku yeelan doona kumanaan kun qof oo dalbanaya dhalashada dalkan Irishka ah iyagoo ku dalbanaya deganaanshaha ay waddankan deganaayeen. haddaba khubarada sharciyadu aadka u yaqaana runtii aad bay walaac uga muujiyeen xeerkan oo runtii keeni kara inuu dad badan runtii ka hor istaago inay helaan dhalashada dalkan. sidaad og tahay xeerka dhalashada siinta dalkan oo lasoo saaray 1956 oo loogu talagalay dadka ajaanibka ah ee dalkan degan ee doonaya inay si sharciga waddankan ku degaan oo laga rabo 5 sano ee ugu dambeysay inay alaamsa ala maxamed waddankan deganaadaan halka alaamsa ala maxamed kuwa iyagu sharciga ku qaadanaya qabitaanku ay tahay 3 sanadood. tan waxay alaamsa ala maxamed xeerkaasi dhigayay in qofku sanadka ugu dambaysa uu si joogto ah oon kala go' lahayn 12 bilood uu magaranaysaa ugu noolaado dalkan isagoo aan dhinacna uga bixin. dhab ahaan waxay noqonaysaa wasaaradda cadaaladda iyo sinaantu inay qofka haddii uu sida caadiga ahaa waqtiyada hore 6 week uu ka maqnaan karay waddanka, laakiin imika marka waliba ay noqoto iyadoo ay jirto arrin looga qeyligayo qofka oo arrin degdeg la soo diristay uu ka maqnaan jiray 6 week muddo 6 weega. sidoo sheegay wasiirka cadaaladda Justice Max Barrett waxa uu sheegay in 6daa weegay runtii ay ahayd mid imika waqtigan xaadirka aan la ogolaan karin marka loo eego xeerka 1956 kaasoo alaamsa ala maxamed awood siinaya wasiirka cadaaladda isagu inuu go'aan ka gaadho ciddii uu sharciyad siinaya iyo ciddii kale. marka haddaba la eego xagga magaranaysa erey bixinta ereygan macnahan marka loo eego dictionary-ga ama qaamuuska afka Englishka oo markay noqoto kelmadda la leeyahay qofku waa in 12 bilood ugu dambeeyay si continuous nacamtii aan kala go'go lahayn ugu noolaaday waddankan waxay noqonaysaa markaasi in aanay haba yaraatay jirin wax gaaba ama wax magaranaysa u dhaxayn kara waqtigaasi oo inay tahay in qofkaasi xidhiidha uu sanadkii ugu dambeeyay dalkan ugu noolaa. lawyer alaamsa ala arrimaha sharciga garyaqaan arrimaha sharciga aad u yaqaan gabadha la yiraahdo Elif Gillespie ayaa waxay sheegtay in go'aankani uu alaamsa ala saameyn weyn ku yeelan doono dad badan oo codsanaya waqtigan xaadirka dhalashadaasi maadaama qofka 12kii bilood ee ugu dambeeyay laga rabo in waddanka aanu maalinna dibadda uga maqnaanin xitaa aanu gaadhin North Ireland oo aan runtii dalkan wax weyn u jirin oo xitaa in marka qaarkood qofka magaranaysa ay taga oo runtii haddii hal maalin ku maqnaado ay arrintaasi saameyn ku yeelan doonto deganaanshihii dhalashadii waddankan ka dalbanayay maadaama sanadkii ugu dambeeyay uu maalin ka maqnaa. sidoo kale waxay tiri go'aankani waxa uu qofka ka dhigayaa magaranaysa dalkan ku nool mid aan waddankan alaamsa maxbuus ku ah muddada 12 sanadood dhinacna uga dhex bixin si uu helo sharcigaasi oo uu isku ilaaliyo inaanu maalin dhinac uga bixin. haddaba jaraa'idkan oo la yiraahdo Journal ayaa runtii gabadha la hadlay waxa ay sheegtay in dadka alaamsa ala maxamed imika doonaya inay alaamsa ala maxamed dalkan ka dalbadaan dhalashadaasi inay tahay 12kii bilood ee ugu dambeeyay inay alaamsa ala maxamed dalka joogaan haddii ay waddanka 12kii bil waddanka ka maqnaadaana alaamsa ala ilaa sharci kale ay uu saameynayo oo bedelaya arrintaas ay tahay inay dhici karto in lagu diido arrintaasi. waxay ku dartay in alaamsa ala maxamed qofka lagu diidi karo haddii qofka magaranaysa uu ka maqnaado maalin qura 12kii bilood ugu dambeeyay. waxay ka sheekaysay marka dadka imika codsiga dhalashadooda hor yaallo miiska wasiirka ee ku saabsan in la siiyo dhalashadaasi haddii ay ka maqnaadaan maalin qura amaba ay alaamsa ala maxamed
ay dalka dibadda uga maqnaadaan waxay saameynta inay arrintaasi saameyn weyn ku yeelanayso go-aankooda sida oo kale haddii aan xeerkaasi iminka aanu jirin xeer kale oo meesha xeerkaa ka saaraya oo taasina ay saameyn iyo caqabad weyn ku noqon doonto lawyer kale oo la yidhahdo Cathal Moran ayaa wuxuu sheegtayna in Al-Amin Sahle Maxamedey taasi haddii la dabaqo ay keenayso in la joojiyo ama dib u dhac badan ku yimaado go-aankii qofka ama garanayay in yar waddanka ka maqnaa ama arrintiisaasi aanay Al-Amin Sahle Maxamedey meel mar noqonin ilaa inta xeerkaasi jira laga gaadhayo go-aan kale gabadhaasi Moran oo aad iyo aad ugu takhasustay arrimaha sharciga iyo isdhiibka ma garanayay markay noqoto dadka maangelyada doonaya aad iyo aad ugu xariifa oo la hadashay joornaalkaasi waxay sheegtay in haddii la fuliyo xeer kan dhigaya in 12 bilood ugu dambeeyay qofku aanu maalin qura meel uga bixin haddii ay la hirgeliyo sharcigaasi waxay ka dhigaysaa bay tiri wasaaradda dhan ee ma garanayay cadaaladda qaybta u qaabilsan sharci deganaan dhalasho bixinta inay dhammaanteed istaagto oo runtii aanay wax shaqo qaban ilaa iyo inta sharcigan xeer Al-Amin Sahle maxkamadeed abiil loogu qaadayo tanna waxay dhigaysaa bay leedahay in ay ka shaki qabto in arrintani aanay markiiba maxkamadda sare aanay Al-Amin Sahle Maxamedey si degdega arrintaasi aan loo fulin karin wax ay qaadanayso waqti qaadanayso sidoo kale kudana waxay sheegtay in ay dhici karto in su'aal ay ka iman karto dadkii iyaga laftooda hore loo siiyey Al-Amin Sahle Maxamedey sharciga loogu siiyey inay 6 bilood ka maqnaan karaan waddanka Al-Amin Sahle Maxamedey oo taasoo ka dhigi karta marka sharciga la eego inay tahay wax arrintii wax aan sharci ahayn waxaa jira dad badan oo Al-Amin waxay tiri dad badan baa jira oo runtii sharciyada Al-Amin Sahle dhalashada la siiyey oo kuwaasoo aan si joogto ah ama si toos ah ama si Al-Amin Sahle Maxamedey kala go' lahayn ugu noolayn waddanka oo qaarkood ay maalmo ka maqnaayeen waxaana ma jirta marka calaamad su'aal la saari karo dadkii hore ee la siiyey sharciyaasi ma waxay ahaayeen kuwa sharci loo siiyey mise waxay ahaayeen Al-Amin Sahle wasiirka awood u lahaa inuu cid doon siin doono sida ku ogtahay ilaa 8,000 oo qof ayaa loo ogolaaday dhalashada dalkan Ireland ilaa 2017 marka loo eego xogta laga soo helay Yurub laga helay daatada Yurub go'aanadaasi marka ay Al-Amin Sahle Maxamedey dadka saameyntaasi ay ku yeelanaysaa waa dadka Al-Amin Sahle soo galootiga ee waddanka 5 sano joogay ee ma garanayay sharciga saa ku qaatay laakiin dadka Al-Amin Sahle waalidkood ay yihiin Al-Amin Sahle Irish ahaayeen iyaga lagama rabo inay inta waddanka ay joogeen ay ama ka maqnaadaan maalin qura iyo toos wada joogaan iyaga taasi inta badan ma khusayso oo sharcigaasi ma khusayso marka kudana wasiirka cadaaladda Justice Max Barrett ayaa waxa uu isagu qoray in Al-Amin Sahle Maxamedey go'aankan maxkamadda sare ay soo saartay maanta uu yahay mid aan cadaalad ahayn waraaqdaasina wuxuu ku sheegay in Al-Amin Sahle Maxamedey sharciga loo baahan yahay in Al-Amin Sahle Maxamedey uu noqdo in dawlad loo helo oo uu noqdo mid Al-Amin cadaalad ah oo Al-Amin Sahle Maxamedey uu noqdo mid laga helo maxkamadda si Al-Amin Sahle Maxamedey uu soo baxo sharci Al-Amin Sahle Maxamedey ka bedeli kara waxaana Al-Amin Sahle gabadhaasna iyo ay sheegtay iyana sharciga Al-Amin Sahle Maxamedey iyo laanta socdaalka aad ugu khabiirka ahi iyo arrimaha maangelyada waxay sheegtay leedahay Moran iyana waxay tiri waxa laga yaabaa in loo baahan yahay si degdeg ah imka in loogu baahan yahay in sharci uu soo baxo wax ka bedeli kara xeerkii 1956 kaasoo dhigayay in qofku 12 bilood ugu dambeysay inuu si toos ah ugu noolaado jaraadka The Journal wuxuu sheegay xiriir uu la sameeyay wasaaradda cadaaladda ilaa imkana runtii aanay wax jawaab ka bixin